war horta guddigan doorashooyinka intaasoo bilooyin ilaa iyo sanadkii hore ayaa dood laga jirtay 60 qafood hal bedel la taagnaa 60kii 40 ayaa bedelnay taagan yihiin maxaa maqan 20 qafood oo weli muran ka jiro marka sidee loo dhihi karaa tababar baan u furaynaa ha imaadaan muqdisho sidee loo dhihi karaa weli waa qabyo weli meesha ay suuradda meesha salaada ka qabsan weysan tahay in laga xaqiijiyo in ay tahay haddana weli waxaa la isku wadaa waxyaalaha qaarkooda oo ah in aan la isku waafaqin laakiin hadda taneeti okay 40 ayaa musuqmaasuqnimo ku soo cadaatay la dhahay 40 qafood baa la bedelay waxay sii raaciyeen ogaadayaa waxay sii raaciyeen qaf dhammaystiran ma jirto waa ogolnahay taasna waan iga gadanay laakiin waxaan nii sheegaynaa weli in ay qabyo tahay welina ay wax kala soconaynin oo wax walbana ay tahay in laga fiirsado sababtee tahay waxaa keenaysaa guddiga doorashooyinka waxaa la rabaa inaynan dhinac xigsanin in ay yihiin cadaaladda ay u taagan yihiin dadka iyo dalka iyo diinta iyo sharcigana ay dhowrayaan ka soo gudub waxaa jirto waxyaalaha qaarkooda fadlan igu shuba raggaasiiti ma la isdhihi karaa inay weli joogaan fadlan igu shubo inay weli joogaan ma la isdhihi karaa aniga waxaan aaminsanahay xambilibi way joogaan wayna jiri doontaa adduunka meelin ka jirana ma leh Soomaaliya kaliya ma laakiin Soomaaliya siiba way u badan tahay fadlan igu shubo way u badan tahay Soomaaliya waxa keenaya waxaasna waxaa waaye rag baa rabaan intay jugta dhacaysay dalka ka maqnaay hadda rabo inay yacni sharuudii waan buuxinin dhahaan markay dalkii waad ka maqnayd intaasoo dad baa ugu soo dhintay intaasoo dad baa kaga soo tagay war waxaan leenahay Soomaaliyeed hal isdejiyo waxaan way dhammaanaysaa laakiin aniga meesha u socoto waa fahmi weysanahay mar walba in la isku dhegnaado oo lees khilaafo waa laga fiican yahay Soomaali ha noolaato waxaan leeyahay dhammaan Soomaali ha noolaato waxaan ii sheegaa dalka dadka iyo diinta loo tiro hana la israaco